weli ma isweydiisay oo ma isaga ka qasmeen magacyada labadan dal ee deriska ah ee wadaaga magaca Congo? Waa laba dal oo wada dhaca bartamaha Afrika, isla markaana lagu kala magacaabo Democratic Republic of the Congo iyo Republic of the Congo. Waxaa mararka qaar lagu kala saaraa oo la raaciyaa magaca caasimadahooda. Tusaale, marka la rabo in la dhaho Democratic Republic of the Congo, waxaa si fudud loo yiraahdaa Congo Kinshasa, halka dalka yar ama Republic of the Congo ayadana la dhaho Congo Brazzaville. Brazzaville waa caasimadda dalka Republic of the Congo, halka Kinshasa iyaduna tahay caasimadda dalka weyn ee Democratic Republic of the Congo. Haddaba waa maxay sababta ay labadan dal u wadaagaan magaca Congo? Magaca Congo ee labadan dal sitaan wuxuu u baxay waqtigii gumaystuhu labadan dal haystay, waxayna kala hoos tagayeen gumaystihii Faransiiska iyo gumaystihii Belgiumka ee dhibaatada weyn ka geystay Kongada weyn ama Congo Kinshasa. Waxayna Faransiisku iyo Belgiumku ku magacaabeen oo ay u adeegsadeen dhulkan magaca Congo. Waxayna ka keeneen magaca Congo webiga Congo oo markaasi kala qaybinayay qayb weyn oo xadkii dhulkii ay Faransiisku iyo Belgiumku qabsadeen maantana labadan dal. Haddaba magaca webigan asiguna wuxuu ka yimid oo asal ahaan u laabanaya boqortooyadii Congo ee mar xukumaysay dhulka maanta u kala qaybsan labadan dal, gaar ahaan dabayaaqadii qarnigii 14aad. 1884 waxaa qabsoomay shirkii Berlin oo ay qaar ka mid ah dalalka Yurub ku kala qaybsadeen qaaradda Afrika, waxaana markaasi Faransiiska la siiyay dalka yar ee maanta la yiraahdo Republic of the Congo, halka Belgiumka asiguna la siiyay Democratic Republic of the Congo ama Congo Kinshasa. Dhulka maanta la yiraahdo Republic of the Congo wuxuu markaasi si toos ah u hoos tagay dowladdii Faransiiska balse Democratic Republic of the Congo si toos ah uma hoos tagin dowladdii Belgiumka. oo sidee kadib shirkii Berlin ama 1985 waxay Kongada weyn noqotay Congo Free State, waxaana si gaar ah u sheegtay Leopoldkii labaad ee Belgiumka ama boqorkii labaad ee Belgium. Shakhsigan ayaa si gaar ah u sheegtay hanti uu leeyahayna ku tilmaamay, waxayna dowladda Belgium la wareegtay maamulka dhulkan 1908. Leopold wuxuu beesha caalamka ku qanciyay inuu asigu si gaar ah u leeyahay dhulka maanta la yiraahdo Democratic Republic of the Congo, asigoo u sheegayay inuu howlo bini'aadanimo ka fulinayo. Laakiin sheegashadaasi taariikhdu waa ay beenisay, waxaana shakhsigan lagu tilmaamaa Hitlerka Afrika marka la eego dhanka dhiig daadinta, wuxuuna dhulka uu xukumayay ka geystay xasuuq daran, waxaana la sheegaa inuu sabab u ahaa geerida ilaa 10 milyan oo ruux oo u geeriyoodeen dil loo geystay, macluul iyo gaajo soo food saartay kadib markii lagu qasbay shaqooyinkii uu Leopold kula baxayay kheyraadka kala duwan ee dhulkan. Dhanka kale, Republic of the Congo ama Kongada yar waxay hoos tagaysay Faransiiska. Haddaba dagaalkii labaad ee dunida kadib waxaa la aasaasay ururka qaramada midoobay, waxaana bilowday ololo lagu doonayay in Afrika gumaysiga looga saaro. Kadibna waxay labada Congo madax banaanidooda heleen sanadkii 1960. Haddaba waqtigaasi waxaa dhacay wareer dhanka magaca labadan dal waxayna labadooduba xornimada kadib la baxeen magaca Republic of the Congo. Laakiin waxaa la isla qaatay in magaca caasimadaha labadan dal lagu kala saaro. Caasimadda Kongada weyn waxaa waqtigaasi la dhihi jiray Leopoldville, halka caasimadda Kongada yar la dhihi jiray ayadana Brazzaville. Wuxuuna magacyada lagu kala saarayay labadan dal noqday Congo Leopoldville iyo Congo Brazzaville. Haddaba Congo Leopoldville waa ay bedeshay magacii ay la wadaagaysay Kongada yar, waxayna u bedeshay magaca maanta loo yaqaano ee Democratic Republic of the Congo. Sidoo kale waxay bedeshay magaca uu Belgiumku u bixiyay caasimadda dalkan ee Leopoldville, waxaana 1966 lagu bedelay magaca maanta loo yaqaano ee Kinshasa. 5 sano ee ugu horeysay kadib xorriyadda wuxuu dalkan cagaha la galay qallaasooyin loo yaqaano Congo Crisis, waxaana 1961 la xiray kadibna la dilay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dalkan Patrice Lumumba, oo sidoo kalena ahaa shakhsi kaalin weyn ku lahaa in laga xoroobo gumaystaha. Haddaba waxaa 1965 dalkan la wareegay kaligii taliyihii lagu magacaabayay Mobutu Sese Seko oo ka soo laabtay dalka Mareykanka. 1971 ayuuna bedelay magaca dalkan ee Democratic Republic of the Congo, wuxuuna u bedelay Republic of Zaire. Dhanka kale ama Kongada yar iyaduna waxaa 1969 ka aasaasmatay dowlad shuuciya kadib markii uu afgambi talada kula wareegay Marian Ingwabi, wuxuuna markaasi magaca dalkan noqday People's Republic of the Congo.
waxayna dowladdii shuuciga ee dalkan aad ugu dhoweyd Midowgii Sofiyeed. Haddaba ugu dambeyn magacyada iyo isbedelada ku yimid labada Kongo waxay soo afjarmeen sagaashameeyadii oo dowladdii shuuciga ee Kongada yar waxaa meesha laga saaray 1991dii, halka Kongada weyn magacii loo bixiyay ee ahaa Republic of Zaire la bedelay 1997dii kadib markii talada laga tuuray Mobutu Sese Seko, waxaana dib loo soo celiyay magacii ahaa Democratic Republic of the Congo oo ilaa maanta loo yaqaano. Haddaba waa sidaasi magaca Kongo ee labadan dal ay wadaagaan, waana laba dal oo laba gumaystay oo reer Yuruba qabsadeen kadibna ku magacaabeen webiga Kongo ee ah webiga labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika.